markale iyo maxaa uu ka qaaday dhanmo qaybtii labaad iyo Windows 7 sida uu ku computerkaaga hadda step koowaad waan soo marnay step labaad iyo numero 32 waxaan oo dhiman in yar waan sugeynaa kadibna steebaha kale ayaa noo bilaaban doona waad ku soo kartaa videogan marka aad fiirsatid si fiican u dhageystid aad u fiirsatid in aad Windows 7 computerka aad ku shubtid waad ku day kartaa isku day wanaagsan ardayda sharafta leh ee Soomaaliyeed afila in uu soo dhawaay Windows 7 hadda waxaan numerayaa 8 iyo 6 waxaan oo dhiman 10 iyo 4 minute kadib waxaa ku shubnay computerkeen Windows 7 weli waxaan ku jirnaa qaybtii labaad sidee uu ku shaqeeyaa Windows 7 iyo sidii alistaad maxaa uu ka qaaday dalmoosha ilmada cusubaan ku idhi abtana culay baan ku idhi cawana hagaag weli waxaan u warayaa saashid shan ونو دميربيا كدي مركو نو دميو فايلكا ugu dheer oo 30 minute qaadanay waa faylka expiration Windows 7 file kadib kuwan kale si active kareysan iyo u boosinaya jeeg saraya kan mar jeego toon sar halahan kale ma daahelo cusubaan ku idhi abtana culay baan ku idhi cawana tashobaan ku idhi cawana tashobaan ku idhi ja jeegi woo saare kan kalena kuma daahin jeegi woo saare waxaan oo dhiman laba amar labadan amar markuu loo dhameeyo computerkeena waxa ku shubay Windows 7 markii dambeeyay ayuu numero hadda dhameystirka Windows 7 si isku dhameystir lahay computerkaaga ayuu numero halkaan markuu loo dhameeyo kadibna waxaan soo kacayo Windows 7 waxaan ka bedeli doonaa faylka magaciisa iyo magaca computerka u bixin tambadi maaska waxaas ayaan ku bedeli doonaa kadibna waan saada si kaman kan kadibna start ayuu diraya computerkeena si virtual ah ayaan u shubayaa mar hore waan idin sheegay ومركله iyo maxaa uu ka qaaday dalmurshe waa qaybtii labaad iyo inta ayaa ku saafmeerina qaybtii labaad qaybtii saddexaad inta ku kulmi doona waa markale iyo maxaa uu ka qaaday dalmurshe sidee uu shubi kartaa Windows 7 computerkaaga
adigan ku idhi